salaadiintii boqoradii guurtidii cuqaashii isugu jirta oo garxajis oo ka tacsiyadeynaysa shilkii ka dhacay magaalada Ceeriyaan oo gacantii aanu anagu yeelanay ayna dib nooga dhacday iyadoo war khaladiina soo gaadhayay xaqiiqadii waxaanu helay inaanu gacanta anagu leenahay mashaqada meesha ka dhacday waxaan ka tacsiyadeynaya beesha Basanbuur oo aniga abtiyadaya arintaas aad iyo aad baanu idinka tacsiyadeynaynaa ilaahay samir iyo iimaan wixii dhintayna ha idinka siiyo haynaga siiyo xaaladaas markaa waxaanu aad ugu guubaabinaynaa waxaanu doonaynaa sida ugu horeysa in gacan bira wax lagaga qabto oo guurtiyeed oo salaadiineed oo arinta la iska dhaahiyo la iskana shafshafayo si fiican reerka calooshooda loo xaadho in arintu qalad ku dhacday sidaasaanu shirka loo qabtay anigu naas cali jaamac gudoomiyaha beesha garxajis bari halkan waxa fadhiya salaadiintii iyo cuqaashii iyo guurtidii garxajis weyne halkan waxaanu tacsiim muruga lagu dareennaa dagaal ka dhacay Ceeriyaan maadaama aanu gacanta hore aanu lahayn aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanu tacsiyeynaa dadka ku dhintay dadka dhaawacmay dhammaantood ilaahayna waxa ka inuu ilaahay caafiyo waxaan aad iyo aad uga xunnahay arinta murugada leh waxaanu jecelahay inta la isu imanaya sidii marka hore nabadgelyada u qabateena u haysan waxaanu maanta halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo qorshihiisu yahay raali gelin iyo tacsi laga raali gelinayo aanu ka raali gelinayno haddii aanu nahay beesha garxajis mashaqadii ka dhacday Ceeriyaan ee ku timid xagga iyagana ka timid kuna dhacday walaalada dadka aan walaalahan xaaladda halkan aanu kaga hadlaynaa waxay khusaysaa dhacdadii ka dhacday Ceeriyaan runtii dhacdadaas oo ahayd mid naxdin leh meel xunna nagaga dhacday annagoo halka u joogna beelweynta garxajis u fadhido nabadeyn hawl weyn oo ka culus oo muddo soo jiitabaysay halka lagu hayay ummadii Soomaaliland halka ku sugan tahay dhacdada halka ka dhacday horta marka hore beelweyntii ay ku dhacday ee aanu tolka ahayn ee Muuse Abukar gaar ahaan Basanbuur gaar ahaan Maxamuud waanu tacsiyadeynaa cidii halka ku dhimatay waa tacsiyad buuxdaan waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan hay naga siiyo qadar bay ku dhacday arintaas waa dhacday qadar bay ku dhacday marka hore tacsiyad buuxda baanu ka bixinaynaa arinta si mugle oo miisaan leh baan tacsiyad u bixinaynaa ballaaran waana ka xunnahay arinta dhacday waa mid lagu wada dhacday kaligeedu kuma dhicin anaga laftigeeyaga ma aha midna loo hambeeyay arinta halka ka dhacday waxaan u sheegayaa labeenta garxajis halka fadhida haba jeclo beelweynta halka fadhida ummadda Soomaaliland salaadiin iyo miisaan iyo xukuumad leh arinta halka ka dhacday waxa noo cadaatay aanu sheegay anagu qarin mayno gacantii inaanu leenahay anagu weerarkii inaanu yeelanay baa cadaatay mar haddaanu gacantii yeelanay oo weerarka aanu maanta aanu qaadnay wax hore halka iga dhig maanta tan cusub baa laga hadlayaa waxaanu ka bixinaynaa apologies waxaanu aad iyo aad idinka tacsiyeynaa shilka Ceeriyaanta ka dhacay ee aan cidi caawa u kulmin aan cidi u tashanin sida kididka u dhacay aad iyo aad baanu idinka tacsiyeynaa waana mahadsantiin sida u adkaysateen ee u dhabaradaygteenna tahniyad gaar ah baanu idinku siinaynaa shirka waa la sheegay shirkan jaraa'id wixii loo qabtay waa tacsi waxa weeye qirasho in gacantii xaggan ka dhacday waxa weeye raali gelin waxa weeye ballanqaad ah waxa la wixii walaalaheen ku bogsanayaan in la sameeyo oo dhinacan aanu xidhaha ka nahay uu sameeyo annaguna aanu ballan qaadaynaa inaanu ka fulino aad iyo waxaa lagu hambalyeynayaa isxakamaynta ay isxakameeyeen iyo sidii qiimaha lahayd ee shirkii jaraa'idaan xalay daawanaynay loo qabtay gaar ahaan ninkii odayga ahaa ay ka dhinteen labada wiil aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa una taxsiinaya ilaahay waxaan ka baryaya dadka aynu samariya iimaan naga siiyo
cawil khayr qabana inaga siiyo cawil khayr qaba insha allah hadalkiisii baan ka garanayay in ilaahay laga helaye waxaan ballan qaadaynaa arrintaa bogsiinteeda inaanu u dhabar adeegno tii munaasabadan iyo hawshan shirka jaraa'id ku saabsanayd raggii hore ay yidhi ku talagalkeeduna wuxuunbuu ahaa uun in dhacdada halkaa ka dhacday garowshiya laga bixiyo oo ciddii geysatay halkaas ee dhinaceeda inkastoo la sheegay inaanay tashi ahayn haddana magaca guud baa dadku wadaagaane waxa weeye ciddii weliba jifada gaarkaa usii ahayd ay ka bixiyaan annaguna haddaanu nahay xidhayaashiiyo waayeelkii beesha ee guud aanu muxuu ahaa dhinac taaganahay oo aanu ku soo qabanqaabinay waxaanan hadalka leeyahay waxa weeye ku soo ururinayaa ilaahay dhacdadaa wixii dhibahee ka timi samiriye imaan guud ahaan allah inaga siiyo gaar ahaan qoyskii ay ku sii dhacday ilaahay samiriye imaan ha ka siiyo bedel khayr qabana ilaahay ha ugu bedelo waxaana jirta oo arrintu ay tahay waxa weeye wixii dhintay waa dhinteen waxa dambe in loo taliyo oo wanaagga lagu dhaqo oo cidda waxgeysataana ay garowshiyo iyo wanaag keento cidda loo geystana ay sabirto ayaa had iyo jeer arrimuhu ku dhaqmaan marka arrimahadan xitaa ta guuda soo noqnoqonayana intaasuunbaa laga leeyahay waxaan leeyahay arrinkaa isaga ah kole waxaanu loogu warramay oo warkaanu ku helnay in arrimo ka horreeyena jireen waxaanu leeyahay waxa weeye kuwaa ka horreeyey iyo intan dambaba arrinka halkaa ku jira insha allahu tacaala waxaanu ku tala jirnaa oo qorshuhayagu yahay inaanu dhammayno oo kuwii hor iyo mid dambaba halkaa labada reer dhexdooda inta ku jirta gacanta la mariyo si gaarana loo eego oo mudnaanta leh oo wanaajinta leh